shalay dhibaatada meesha ka dhacday 18 qof oo shacab ah oo taageerayaasha koonfur galbeed ka mid ah dhalinyarada ku ugu firfircoonaa taageerayaasha dhiirigelinayay calamanka meel walba la taagnaa wareegayay ku jiray garoonka 12 ka mid ah shalay waa la dhaawacay waa jooga gudoomiyahoodii ayaa jooga dhalinyarada qaybta abaabulkaas qaabilsanaa annaga koonfur galbeed ahaan waxaan u fadhinaa in jawaab waafi ah naga siiyo sababta maamul goboleedyada kale ee ciyaartooyda ka socotay mas'uuliyiinta ka socotay taageerayaashooda aan loo dhibaateynin shalay si toos ah loogu bartilmaameedsaday ciyaartooydii iyo mas'uuliyiintii iyo shacabkii iyo taageerayaashii reer koonfur galbeed waxaan rabnaa in qaybta anaga aan ku leenahay arrintan si loo helo xaqiiqda dhabta ah wixii arrintan keenay inaan kaalinteena aan ka qaadano waxaan jawaabtaas ugu fadhinaa dhammaan ciddii mas'uuliyadaas qaaday oo ah ciddii casuumaadda noo fidisay ka maamul goboleed ahaan tartankan inaan kasoo qayb galno ciddii martigelisay oo dhahday annaga ayaa waajibaadkeena uu yahay amnigana inaan sugno martina gelinayna ciyaarahan dhahday iyo cid walba oo kaalin ku leh arrintan inay jawaab waafi ay naga siiyaan waxaan rabaa inaan baaq ugu diro halkan shacabka reer koonfur galbeed inay ku kalsoonaadaan dowladooda dowlad goboleedka koonfur galbeed uu hogaamiyay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen annagoo gudanayna si guud ahaan waajibaadka naga saaran shacabkeena arrintan inaanan dhaliilsan doonin ayna naga tahay runtii arrin lama taabtaan ah in xadgudub lagu sameeyo shacabkeeni anagoo goobjoog ah ciyaartooydeeni anagoo goobjoog ah mas'uuliyiinteeni oo maamul goboleedka ka socday qaar ka mid ah in la dhagaxiyay oo ayaga laftirkooda naftooda ay la soo baxsadeen shalay arrintii meesha ka dhacday haddii jawaabta waafiga ah koonfur galbeed la siin waayo oo aan weli sugayno in dadka arrimaha ku shaqada leh inay si dhab ah arrintan ay uga hadlaan aanan dadka la marahabaabinin waa wax iska cad aan qofna inkiri karin shalay wax la bartilmaameedsanaya inay ahaayeen koonfur galbeed ciyaartooy hadday tahay haddii ay siyaasiyiin yihiin iyo hadday ahaan lahaayeen taageerayaashii shalay meesha yimid taasoo aysan nala qabin maamul goboleedyada kale ee ayagana sidaas la mid ah halkan u yimid inay ka qayb qaataan tartamada asbaab ayaa jirto arrintan ka dambaysa ma ahee arrintan ma aha wax shil ah oo iska dhacay annagoo ma arkin hadday shil tahay dadka kale oo dhan ay qabsan leh annaga keligeen wax naga faquuqay dadka kale oo dhan waa wax laisla ogyahay oo u baahan in la ogaado bankana loo soo saaro dadka oo dhanna la ogeysiiyo u baahan koonfur galbeed ahaana taas ayaan u fadhin hadday dhici weyso hadday dhici weyso marka ugu horeysa waxaa naga go-an inaan ciyaar dambe oo ay nagu casuumeen nagu marti qaadeen xiriirka kubadda cagta federaalka iyo maamulkan gobolka banaadir lagu qabanayo gobolkan banaadir aysan koonfur galbeed ka qayb qaadan doonin waan u xaqiijinaynaa sidaas la mid ah waxaan halkan ka xaqiijinaynaa ciyaartooydeena si degdeg ah inaan uga saari doono halkan gobolka banaadir aan geyn doono meelihii ay ka yimaadeen maamul goboleedkooda aan dib ugu celin doono annagana aanan wax xiriir ah oo wada shaqeyna aanan la yeelan doonin xiriirka kubadda cagta federaalka iyo ciddii kale ee u damaanad qaaday inay sanadkan martigelinayso tartanka koobka ee 2020 ee ka dhacay gobolkan banaadir haddii aan la idmo shacab ahaan waxaan ugu baaqayaa shacabka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan ee arrintan taabatay inay dulqaad muujiyaan inay samir muujiyaan inay dowladooda ka dambeeyaan ayna nooga warsugaan meesha xuquuqdooda ay taalo ilaa aan ka gaarsiinayno hawshan hadda socota ee baaritaan waafi ahna laga sameynayo annaga ayaan ka harsan doonin ayagana waxaan rabnaa inay nagu kalsoonaadaan ayna naga warsugaan haddii alla idmo dhammaantiinana waa idin mahadcelinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu